السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كسر هذا channel كيجا إن شاء الله بإذن الله الكريم ولا شيء نويدين صنقتي هدو إلهي رادو كسر هذا channel كيجا إن شاء الله بإذن الله الكريم ولا شيء ما منور channel محيكها اللي دون تمانته بإذن الله الكريم وحنكها اللي دون مانته إن شاء الله وحيرو برارجنا وقبلها ولا الله إن شاء الله برارجن تيدي أنا ما شاء الله ولقي بأن idin baraarujin jiray ama kulligeenba ina baraarujin jiray insha Allah walaalayaal maanta waxaan soo qaatay haduu Ilaahay raado waana yar oo ma sha Allah tabarakallah gabdhaha walaalahay ku socota haduu Ilaahay raado waxa weeye waanadaasna biidnillahi alkariim walaal ma walaashayda Soomaaliyeed insha Allah waa ka weyn tahay jikada iyo guriga ma sha Allah jikada iyo guriga iyo maaragtay cuntada intaas lagu celceliyaa ma ogtahay marka walaashayda Soomaaliyeed walaashay insha Allah biidnillahi alkariim waxa la inoo abuuray waxa wax ka weyn jikada iyo maaragtay iyo guriga jikada iyo gurigu walaalayaal sidaad u ogtihiinba waa shaqada routiinka ma sha Allah maalinlaha weeyo wixii maalin kasta way ku taagan tahay hawshaas jikadii iyo cuntadii iyo gurigii adaa iskale maaragtay ma sha Allah tabarakallah waa wax ku sugahaya mar kasta waa nolol maalmeedkaada ay ka mid tahay wax sii weyn ma aha qada iyo quraac iyo casho mar kasta maaragtay waa waxa maaragtay noloshaada maalinaha ku jirto wax ka weyn baad walaashida qaaliga ay qaban kartaa insha Allah biidnillahi alkariim guriga hagaajintiisa iyo cuntada karinteeda iyo caruurtaada iyo gurigaada iyo reerkaada wax ka weyn baad maaragtay qaban kartaa hawshaas waa hawsha maalinlaha aad leedahay weeyaan maaragtay hawshaada ku jirta marka walaashayda qaaliga waxaan kaaga digayaa biidnillahi alkariim jikada inaad ku soo aruursanin jikada inayna noqon naftaada maaragtay dhan inaad maaragtay jikada iyo guriga iyo waxa aad siinin jikada iyo guriga wax weyn ma aha waa nolol maalmeedkaada aroortii baa soo kacaysaa cuntada caruurtaada u karsanaysaa qadadii sidaas la eg waa musqusha aad galayso hadana ka soo baxayso kale waa qabayskii maaragtay jirkaada oo kale la mid tahay marka walaashayda qaaliga adigoo jikadii ka shaqeynaya adigoo caruurtii haysta adigoo cuntadii karsanaya adigoo reerkaadii haysta ayaa hadana wax ka weyn lagu abuuray jikada wax ka weyn baa lagu abuuray walaalahayga Soomaaliyeed waliba gabdhaha Soomaaliyeed waxa idinka digahayaa waan kulligan inooga digahayaa nagala hadlayaa maanta filimka ama video yarka waxaan u soo duubay inaan maaragtay jikada hawsheeda ma dhamaato jikadu waxa weeyaan waa sida aad cabitaanka iyo waxaad cuni lahayd iyo jiifka iyo hurdada u rabto way jikada iyo gurigaada iyo reerkaada waa wax adiga khaas ku ah weeyaan adaa iska leh adigay ku taalaa wadaa qabsanaya mar kasta wax lagu barahayana ma aha wax maaragtay adiga aad qof kale ka soo baranaysana ma aha markaad soo toosto shaqadaada aad guriga ka qabsan lahayd waa garanaysaa marka walaal waxa u baahan tahay maskaxdaada wax ka weyn inuu galo inaad wax baratid inaad maaragtay waxyaalo badan focuskaada saartid jikada ka weynow jikada iyo guriga walaal macaan ka weynow ka kor jikada ka kor jikada iyo guriga wax ka weyn baa lagu abuuray Allahna ku abuuray shantaada salaadood markaad tukato waxaad qabsan kartaa waxyaalo ka waaweyn maaragtay quraankaadaad baran kartaa xadiistaadaad baran kartaa maaragtay ilaahay wuxuu ku faray baad baran kartaa aakhiradaadaad baran adduunyadaadaad baran kartaa markaad jikada kaliya ku wareegaysato laakiin oo jikada wax weyn lagaaga dhigo oo jikadii maaragtay aad ku mashquusho oo guriga ku mashquusho oo wax kale aadan kor u fiirinin waxa weeyaan focuskaadi baa ka lumahaya hamigaadi baa ka lumahaya wixii ka weynaaya ilaahay ku abuuray qabsan lahayd baa ka lumahaya yaani waxa noqonaysaa qof gabigiisaba ku soo aruuray 2 mitir uu degan yahay mar oo cuntada guriga uu ka kariyo iyo taada kaleeto waxa weey walaalayaal waxyaalo badan baan soo wadaa insha Allah biidnillahi alkariim oo inaan maaragtay iska toosino ama aan iska waanino inoo maaragtay aan u baahanahay biidnillahi alkariim sida waxa la yiraahdo 24 saac laga hadla xaajiga iyo guriga iyo jikada iyo reerka waa wax adiga gooni ku ah adiga iska leh waa nolol maalmeedkaada laakiin wax ka weyn intaba ayaad qaban kartaa intaas ba adoo isku haysto on dhibaato kale keensanin ayaad wax ka weyn qabsan kartaa
oo waxaad baran kartaa maaragtay haddaad ganacsi rabto aad ganacsan kartaa, haddaad shaqo rabto waad shaqaysan kartaa, haddaad waxbarasho rabto waxbaad baran kartaa. laakiin walaalayaal focuskeenna iyo maaragtay nolosheenna keliya ayayna noqonin inaan jikada iyo guriga basa ku ekayno oon dhahna wax kaleba ma qaban karno, intaasaa nagu filan, jikadaa nagu filan, cuntadaa nagu filan, intaa basa kama badin karno inaana dhihno focuskeeniba aan saarno un jiko iyo guri iyo oday iyo waxaasoo dhan. walaalayaal ka kora gabdhaha walaaladaya, aniga kow anaa isla dardaarmaya insha allah. dardaaranka waxaan anigu fuliyo unbaa aniga maaragtay idinka idinsoo gudbinaya hadduu ilaah yiraahdo. walaashay qaali, maanta waxaan ku wadaa maaragtay inaad awoodo jikada iyo guriga iyo caruurta wax ka badan inaad awoodo. marka in maaragtay lagu soo gaagaabiyo noloshaada oo la yiraahdo jikada iyo guriga bas noloshaada dhan ah ma aha. waxaa ka weyn baa qabsan kartaa, niyadiyaa lagaa jabinin, qof ha dhegaysanin. waxay wax ka badan waa qabsan kartaa. haddaa waxbarasho rabto berri buugtaada soo qaado, haddaa shaqo rabto berri meesha kugu dhaweed markaa aad rabtay u aad waad helaysaa. wax ka badan walaasha qaaliya baran kartaa, yaad qabsan kartaa insha allah. marka jikada aan ka weynaano walaalayaal, maasha allah. maanta fideoga yarka ah 6 daqiiqo ah waxaan usoo duubay insha allah. waanada yarta ah yacni madax xanuun bay igu noqotay jikada bas inay gabdhaha lagu waaniyo iyo maaragtay guriga. jikada iyo guriga sidaan hore kugu sheegay waa waxaan ku huraynin marnaba. adaa iskale jikadaada iyo gurigaada, adaa iskale, adigaa iskale, adaa haddana maamusha, markastana maamusha jikada, adaa maamusha, adaa qabsada, adaa reerkaada haysta. wax kuu sheegay wax male. laakiin waxaa la rabaa maskaxiyan inaan u dhisano dad nool oo xayi ah inaan noqono, dad kor u fikiraya inaan noqono, hooyooyin caafimaad qaba oo maaragtay wax qabsaday oo wax qabsan kara oo hamile inaan noqono biidnillahi alkariim. walaalayaal insha allah fideogan intaan hadda hadlay 7 daqiiqo noqday biidnillahi alkariim. inaan sii badiyo mar rabo waanada yarta, waanooyinkana waan wadaya insha allah. waxaa weeyaan waxyaalo waaweyn baan inoo soo wadaa biidnillahi alkariim. walaalahayga qaaliga ah, jikadaha laga koro insha allah biidnillahi alkariim. jikada adaa iskale, jikada wax weyn ma waa qabsataa, haddaba waa karsataa, waad kelin garaysataa, yacni adaa iskale gurigaada. laakiin wax ka weyn maskixiyan baad u baahan tihiin inaad maaragtay yaan u baahannahay inaan kacno maskixiyan inaan korro. walaalahayga qaaliga aad iyo aad baan idiin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa walaashiin oo idiin soo noqotay insha allah biidnillahi alkariim. haddaana ilaahay ka waayin waa inoo sii wadi doonaa waanooyinkeenii. marka koowaad aniga maaragtay wixii aniga isoo mara, wixii aniga aan maaragtay aan isku waaniyo un baan idinkana idiin soo gudbinaya insha allah. aniga marka horeeta waa inaan isku dabaqo, ilaahay ku weelayaha naga dhigo. kulligan baa waanada u baahan insha allah. marka walaalahayga qaaliga hadday maaragtay waanada aydan anfacday walaalihiin sii gaarsiiya, subscribe gareeya. waan soo dhaweynaynaa dadka nagu cusub insha allah biidnillahi alkariim. inkastoo aan waxyaalo badan lumiyey oo dad badan aan lumiyey insha allah.